Qabowgu waa waxa ka soo horjeeda kulaylka, waana shay dabiiciya oo Ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala inay ku intifaacsadaan sidoo kalena waxtar u yeesho makhluuqa iyo abuurkuu ku abuuray dunidan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa faraha badan wuxuu ugu deeqay nicmooyin fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. Waxaa ka mida kulaylka ama markaasi diiranaanta iyo shayga ka soo horjeeda kulaylka oo ah qabowga. Si kastoo ay tahayba, haddii qabowgu xadkiisa ka baxo wuxuu noqdaa dilaa, wuxuuna noqdaa shay dhibaateeya qofka bini'aadamka ah noloshiisa. Kulaylku hadduu xadka dhaafo isaguna waaba ka sii daran yahay qabowga, osna wuxuu keenaa dhimasho. Tusaale, madaxa oo dhiig kaaga furmo adigoo isku dhex yaaca iyo weliba jawigaaga oo qasma. Si kastoo ay ahaataba, wax walba Ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ugu talagalay haddii ay dhaafaan dhibaato ay keenaan. Wax walba, xitaa khayrka iyo wanaagga iyo biriga iyo samahaba, haddii xadka la dhaafiyo oo laga badbadiyo wuxuu noqdaa wax kale oo cagsi ku ah wanaaggii markaasi la yaqaanay. Sidaa daraaddeed, sheekadu waa khayrul umuuri awsaduhaa, ama arrimahoo dhan waxaa u wacan dhexdhexaadka, ama yacni shay walba in la dhexdhexaysto oo aan laga badin lagana gaabin. barnaamijkeennan maanta waxaan uga hadlaynaa halka ugu qabow dunida. Waa meel marka laga sheekeeyo aadan xitaa jeclaysanayn in laga sii sheekeeyo qabowgeeda awgeed inaad booqato iska daa amaad ku noolaato waxaana ku nool dad u yar. Runtiina la qabsaday nolosha halka ka jirta ee aadka u adag. Waa nolol aan kulayl la arag, kulaylkana loo raadiyo sida bil dhalatay oo kale. Sidaa daraaddeed, ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta waan ku soo qaadanno barnaamij xiriir la leh arrintaasi, ama ah halka cimiladadu ay yihiin dunida meesha ugu qabow. Soo dhowow daawade, halka aad naga daawanaysaa waa deeqsame iyo anigoo ah Axmed Deef Xasan. Halkan waa meesha ugu qabow kowkabka aan ku dul noolnahay. kowkabkan Ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala waa Greenland. Waa jasiiradda aadka u xajmiga weyn, sidoo kalena ah halka ugu qabow dunida, adigoo halkaa markaa tagto urinaya ama u dawaanaya geerida nafteedii. Waa meel dadka ku nool ee gaaraya 60,000 ay ku dadaalaan sidii nolosha ay baaka ugu sii ahaan lahaayeen, iyagoo taa u bixinaya dadaalaadu fara badan. Waxay xidhanayaan jaakado iyo dhar adag, kuwaa oo laga sameeyey xayawaanada iyo noolayaasha qaar ee halkaasi ku nool, si ay markaasi uga helaan xogay diiranaan ah uguna baaqi ahaadaan nolosha. Halkan markaad joogto waxaad arkaysaa shay weliba oo barafoobaya hortaada, isagoo ku dagaxoobaya oo baraf adag oo aan la jebin karin oo kala noqonaya. Qabowga ka jira iyo xaaladda markaasi meeshu sida ay tahay awgeed. Halkan inta badanba waxaa laga isticmaalaa cabitaanno khamri ka samaysan, waayo jidhkooda ayay waxay aaminsan yihiin in khamradu u yeedhayso kulayl ama diiranaan ay markaasi ka dhaxlayaan. Sidaa daraaddeed ayaa khamrada loo cabaa, si markaasi diiranaan jidhkooda uga helo, markaana ay nolosha baaqi ugu ahaadaan. Hooyooyinka uurka leh ayaa caba, ilmahoodu markay dhashaanna wayba ku bilaabaan, haddii kale qabow ayay u dhimanayaan. Xilliyada qaar Greenland waxa ay darajada kulku gaartaa 5 ilaa markaasi tiro u dhaxaysa 30 Fahrenheit. Yacni waa qabow aad u daran oo qofku uu dhulka kula dhacayo haddii aanu wadan wixii loogu talagalay ee uu markaa kaga caawan lahaa ama uu kaga hortegi lahaa qabowga daran. Halkan Greenland, haddii biyo caadiya oo kulayla bannaanka loo soo saaro, kadibna lagu shubo weel oo hawada lagu taadiyo, yacni la firdhiyo, adigoo arkaya oo u jeeda ayay baraf noqonayaan. Bal ka waran heerkulka halkaa ka jira iyo qabowgu xadka uu gaarsiisan yahay. Greenland waxaa gawaarida adeegsada shirkadaha lacagta leh oo keliya, sababtoo ah gaarigu wuxuu u baahan yahay matooroo ku shaqeeya 24 saac. 24 saacna wuxuu adeegsanayaa shidaal aad u fara badan si aanu u barafoobin, gaariguna u istaagin. Yacni diiramaad iyo kulayl fara badan iyo howl badan oo taxaddar iyo weliba in laga warhayo ah ayuu u baahan yahay. Sidaa daraaddeed, dadku dhammaantii ma wada iibsan karaan gawaari, maadaama uu shidaalka intaa la eg ee aadka u faraha badan uu baahan yahay. Tubooyinka biyaha laga cabo iyo shirkadaha biyaha soo saara waxay u baahan yihiin tubooyinkaasi in loo yeelo wax diiramaadiya ama kulayliya. Haddii kale, inta qaboobaan ay heer waxay gaarayaan ay tubooyinkuba ama markaasi ay qarxaan. Yacni qabowga daran awgii ayay la qarxayaan oo qayb ama qurub ku noqonayaan. Halkan waxa ugu badan ee laga adeegsado hilib ahaan ama laga cuno markaasi waa kalluunka iyo noolo kale oo ka mida kuwa badda ku jira oo loo yaqaano faxaamatul bahr.
haddaba marka la adeegsanayo hilibkooda ama la cunayo ayaa lagu cunaa qaab markaasi iyadoo karsan ah iyo iyadoo weliba ceeriin ah. yacni ceeriinna waa lagu cunaa, bisaylna waa lagu cunaa. xitaa maqaarkiisa ayaa mararka qaar kalluunka ama malayga la cunaa iyadoo laga raadinayo in badan oo faytamiin ah. halkan fitamiinka in la raadiyaa ama la dalbaa waa arrin aad muhiim u ah, waayo jidhka difaaciisu waa uu dhumayaa haddii aan la helin fitamiinadii jidhku qaybihiisa kala duwan ay u baahnaayeen. xilliga dhulkan barafku uu daboolay uu barafku zaa'id noqdo ama uu ku soo bato, ma jirto waddooyin la adeegsan karo ama gawaari mari karayaan ama dadkuba ay u suuragelayso. keliya waxaa la adeegsadaa diyaaradaha iyo weliba aalado kale oo adag oo barafka ku dul socon kara. gaar ahaan waxaa ka mida kuwa lagu xidha eeyaha ee markaasu dadku inta ay koraan ay ku gaaraan halka ay doonayaan. shayga ugu badan ama ugu muhiimsanna wuxuu yahay waa ugaarsiga ama kalluumaysiga, oo kalluunka faraha badan ee biyahan iyo barafkan dhex yaalla ayaa la soo qabsadaa. ayaga ayaa laga sii ganacsadaa, sidoo kalena laga baayaa mushtaraa. waxyaabo badan oo meesha laga sameeyana way jiraan. halkan inta badanba waxay ka sheegtaan dadku ama da'yarto niyad jabka iyo warwarka iyo walaaca, waayo meeshu waa meel mugdi ah, sidoo kalena jawigu aad u qabow yahay. sidaa daraaddeed 5 ka mida 15 kastee dhallinyaro ah 15 ama 17 sano gudahood wuxuu isku dayay qof kastoo ka mida da'yartaas, waa 5 ka mida 15 kastoo qofe, in markaasi noloshu uu isnaafiyo ama uu isdilo. sababta ma garanaysaa? sababtu waa jawiga meesha ka jiray aadka u adag ee aan lagu noolaan karin, iyo weliba sidoo kale iftiinkoon la arkayn iyo mugdigo meesha ku badan. waa meel dab ahaantii dadka geesiyaasha mooye qof kale aanu ku dhiiran karin inuu booqdo ama uu dego. waxaana deggan hadda oo keliya 60,000 oo qof. haddaba adigaan i daawanaya, daawadaha qiimaha badanow ma ku dhiiran lahayd inaad degto halkaasi? ma tegi lahayd oo booqasho ma ku aadi lahayd? haddii lagu siiyo guri iyo wax kasta halkaa lagaa siiyo, ma degi lahayd? hadday dadku eegayaan adduunyooyinay tabcaan, adaa hanti igu filan. hadday dadku eegayaan